القرآن الكريم بعض المفردات التي تحتاج إلى وقفة مثل قوله تبارك وتعالى مثلا وكأن القرآن الكريم فاضل waxaa ku jira erayo kuwaas oo u baahan in la fahmo tusaale ahaan Ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala way ka anna Allah sidee u ciraabeynaa sidee u fahmeynaa Sheekh Fadil waxaad weydiisay sidee u ciraabeynaa sidee u fahmeynaa way ka anna waa laba eray way waa ismu ficil mudaaric oo bimacna acjab ah way waan la yaabayaa noqonaysaa waan la yaabayaa miyaa Sheekh Fadil waan la yaabayaa way macnihiis oo عجبا ولا يابي يعني أتعجب ولا يابي وي حتى مرك خار وحانو استعمالنا لغة قرية وي يعني عندنا ويلي شيخ خادم ملم با ما ويلي ويل معها ومعرب والسيتن ويلي ومب يعني مرك ياركين غلاسي سيد الله قليل قارون وحي يرادين غيار وابا asagoo alla u fidiyo risqiga cid uu doono waa adoomadiisa kamid waanu ku ciriiriyo cid uu doono waa adoomadiisa kamid marka macnaha taajub iyo la yaab ayaa halka kaga jira waxay la yaabayaan sida markay shalay u tumanayeen in Ilaahay waxa uu qaarin siiyay nimcada iyo barwaaqada idaha guriga markay arkay in asagii daarihiisii gurihiisa dhulka lala gooyayna waxay ka yiraahdeen cidii saanada la siiyo oo hadana miisaan loo gulayaa arintaas ama shaweyga aan markaas la yaab iyo cajiib marka la yaab iyo taajub meelahaas ay kaga yihiin